soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helo waxa ka mid noqonaya maleeshiyaad ka tirsan beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale ciidamada maamulka Somaliland ayaa isku rasaasiyay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal. Samaroon ayaa diidan xuska 18 May la qabanayo iyadoona sabab la xiriiro in ciidamada maamulka Somaliland ay ku sheegeen Samaroonku inay kala safteen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise. haddaba warkaasi ay beesha Samaroon ka soo baxay maleeshiyaadkeeda maxaase ka jiro maxaase corona muuqaalkan ayaan kugu faaqidi doonaa. sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helo waxa ka mid noqonaya ugaaska beesha Ciise oo hub fara badan wata ayaa maanta waxa uu soo gaaray tuulada Heemaal iyo waliba sidoo kale ciidamadiis waa markaasi ciidamo soo aasa waa markaasi cid siisay hubkaasi waliba sidoo kale tirada hubka uu watay ayaan rabaa saaxiibana halka idin kula wadaago. sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan caawa waxa ka mid noqonaya dagaal waa markaasi dagaal culus ayaa caawa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco Boorame ilaa iyo Heemaal. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ciidan ayaa hadda soconaya iyadoona halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoogan. qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo saaxiibayaal ku daawan doontaan soo dhawaada. anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon, halkan aad iga daawanaysaan waa Macaash Media. haddii aad markuu ugu horeyso fadlan kanalkan rukumo subscribe dheh, muuqaalkan aad daawanaysid like garaysiin share gareeyo saaxiibada la wadaag. mahadsanid daawade. hagaag aynu ku bilaawno. maleeshiyaad ka tirsan Samaroon iyo ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ayaa markaa faraha foodeeda isku daray iyadoona qasaarooyin lixaad leh halkaasi laga soo warinayo. ciidamo ka tirsan maleeshiyada beesha Samaroon ayaa sheegeen in ay ciidamada Somaliland ay yihiin cadowgooda maadaama ay iyagu ay maartay ku xisaabiyeen in ciidamada geesiyaasha madaniga Ciise inay la safteen. Samaroon iyo waliba sidoo kale beesha Ciise ayaa ahaa kuwa wada dagaalamay, balse waa ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ayaa markaasi guddiga u soo xil saartay dejinta xiisadaha dagaaleed ee dagaal beeleedyadan ku soo markaasi cusboonaaday. balse ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa target laga dhigtay oo weerar duulaan ah ayaa waqti walba lagu qaadayay iyadoona haldooradooda iyo waliba sidoo kale bulshada qeybaheeda kuwooda ugu muhiimsan ayaa la isku dayay in la taageero waa maartay in la taageerayso. balse laakiin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise iyo dadkeedaba oo aad u foojigan ayaa ka badbaaday qorshayaal waaweyn oo la doonayay in rag saraakiil ay rag waaweyn oo ka soo jeeda beesha Ciise lagu qaarijiyo. balse beesha Samaroon maleeshiyaadkeeda ayaa cawaad iyo maartay markan bilaabeen iyagoona sheegeen in ciidamada Somaliland ay ka xigsadeen dhinaca beesha Ciise iyagoona sheegeen in magaalada Boorame aan lagu qaban doonin dabaaldega xuska 18 May oo ah maalin markaasi si weyn Somaliland markii la gaaro ay u dabaaldegaan. balse arinta ayaa tal rabbi ku filan ku naqatay kadib markii ay sheegeen cidii ay iyagu loo tirinayay inay markaasi waa maartay hal dhinac ka soo jeedaan ayaa durbaba bilaabay in ay iyagu markaasi looga cabsi qabo in ay iyagu markaasi ay ku labteen. wararka haddii aan fiirino warar kala duwan ayaa ka soo baxaya gobolka Awdal ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan Samaroon iyo ciidamo markaasi ka tirsan Somaliland waa maamulka Somaliland ayaa isu rasaasiyay magaalada Boorame kadib muran iyo waliba sidoo kale xiisad la xiriirto qabanqaabada munaasabada 18 May oo ay doonayaan maleeshiyada beesha Samaroon markaasi ay joojiyaan. wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in qeybo ka mid ah bulshada Samaroon ay ka soo horjeedaan qabashada munaasabadaasi iyagoona ku eedeeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Somaliland in ay garab siinayaan beesha Ciise taas oo sii horinaysa xaaladda cakiran ee gobolka Awdal tan iyo marka loo fiiriyo. beesha Samaroon ayaa hadda ku eedeynaysa in ciidamada Somaliland ay xigsadeen beesha Samaroon. horey beesha Ciise ayaa ugu dhiidhisay in ciidamada Somaliland ay u janjeeraan dhanka dhanka beesha Samaroon. xaaladda ayaa hadda mid cakiran iyadoona cabsi kala duwan ay dadku ay dareemayaan. sidoo kalena waxa markaasi soo ifbaxaya in gudaha magaalada Boorame gabi ahaanba la diidan yahay in wax calanka Somaliland laga suro maadaama ay hadda xaaladdu ay sii xumaanayso. 18 May
oo muddo 4 maalin waa markaasi muddo 6 maalin ka dhiman ayaan la ogeyn in magaalada Boorama si habsami leh uga qabsoonto munaasabadaasi in maartay ay la hakin doono balse laakiin sheekadu waxay u badan tahay in gabi ahaanba la hakin doono dhanka kalena haddii aan fiiriyana ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa hub fara badan waxa uu la soo gaaray tuulada Heemaal isagoo markaasi hogaaminaya ciidamo tiro badan oo iyaga maartay isaga waardiyaal ama maartay ilaaladiisa gaarka ay yihiin ugaaska beesha Ciise ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa dalka Djibouti waxayna ku qayb galay caleemasaarka madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa ee dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele halkaas ayuu kala kulmay mas'uuliyiinta ugu sarsareysay dalka sida madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba sidoo kale madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cabdi Cagjar iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele isagoo shirar kala duwan oo kula qaatay balse waxay u ballan qaadeen hadii ciidamada Somaliland ay dagaalka qayb ka soo noqdaan in ay iyaguna garab iyo gaashaan u noqon doonaan balse ciidamadan waa maartay ugaaska beesha Ciise isagoo ku faraxsan ayuuna markaa ka soo dhaqaaqay isagoona hub iyo waliba sidoo kale saanad military uu markan ka helaya hogaamiyihii tobanaad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo xileedkiisa uu ka harsan yahay muddo 2 maalin ah markii maalintii bariya laga reebo balse guud ahaan xaaladda ayaana naqanaysa mid cabsi badan soo wajaha Samaroonka iyo Somaliland maadaama ay isku dhinac yihiin tanina waxay noqon kartaa haddii ay sidaa wax ku sii socdaalaan in ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ay noqon doonaan kuwa libinta dhankooda markaa ay raacda sidoo kale waxaa maanta deegaanka Heemaal gaaray ugaaska beesha Ciise ugaas waa maartay ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim oo la sheegay inuu watay ciidamo iyo waliba sidoo kale hub fara badan waxaana socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo si weyn loogu dareemayo halka ila deegaankana ay sheegayaan in hubkaasi ay taageerada la xiriira dowladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo aanan jirin war rasmi oo ka soo baxa dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku sheegayaan in ay garab iyo gaashaan u noqdeenba ayna siiyeen hubka noocyadiisa kala duwan iyo taageerada military horey sidan oo kale Mustafa Cabdi Cagjar ayaa ballan qaadi u sameeyay inkastoo uu oofiyay haddana xaaladdu waxay u muuqataa mid markaasi aan cabsi badan taagneyn iyadoona dowladda Soomaaliya ay markan ku dhiirinayso in ay iyaguna maartay ugu deeqaan hubkaasi qodobkeena ugu dambeeyana daawadayaal haddii aan fiiriyana dagaal culus ayaa caawa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco magaalada Boorama iyo Heemaal tuulada Heemaal waliba soo kale Boorama ayaa ah dhowrkii maalmood ee u dambeysay xaalad siyaasadeed oo aad maartay u cakiran ayaana ka jirtay iyadoona marka loo fiiriyo dagaaladan iyo waliba sidoo kale xaaladda halkaasi ka jirto ay tahay mid indhaha laga dadin karin dagaalkan caawa laga cabsi qabaa ayaa la dareemayaa tuulada Heemaal iyo waliba sidoo kale Boorama banaankeedaba ciidamo markaasi taabacsan dhinacyada kala duwan maleeshiyada beesha Samaroon iyo geesiyaasha beesha Ciise ayaa caawa halkaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan iyagoona saacadda ka dambayso ay noqon karto in shab isdhahan oo dagaal adag halkaasi ku dhaco inkastoo aan loogeyn halkaas sida rasmiga ku dambeyn doono haddana waxaa muuqato dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo labada dhinacba ay sameynayaan oo ay doonayaan in midka kale uu kaga adkaado haddii aan fiiriyana dhanka kale waa markaasi dadka ku nool Boorama ayaana markaasi deegaanada dadka ku nool Boorama iyo waliba sidoo kale deegaano ku dhow Heemaal ayaa wajahaya cabsi xoogan oo ku aadan in dagaal uu markaa uu ka qarxo caawa iyadoona dhaqdhaqaaqyo markaasi laga dareemayo maleeshiyada beesha Samaroon iyo kuwa ciidamada geesiyaasha madaniga ee beesha Ciise xogaan helayna ayaana sidoo kale ay sheegayaan in odayaal iyo waxgarad dadka deegaanka ay doonayaan in xaaladdu ay si degdeg ah u xaliyaan balse laakiin hadda waxa muuqato xaalad kacsanaan ah iyadoona ciidamada kuwa beesha Ciise lagu arkay Heemaal iyagoo gaafureegay sidoo kale kuwa beesha Samaroon iyagana maartay banaanka magaalada Boorama ay taagan yihiin kuwaas oo ay doonayaan in dagaalka ay hore u galaan balse xaaladan ayaana noqon karta inay sii horaad waa maartay sii dheeraato dagaal beeleedyadan ka socdaan
awdal iyo weliba sidoo kale salal guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaya dhammaantiinba inaad youtube-ka soo subscribe gareysaan si aan u gaaro 5,000 oo subscribe 10 qof oo keliya ayaa nooga dhiman ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 5,000 ee subscribe-ka waana ku mahadsantiin daawashada muuqaalka mahadsanidin